بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحان سلام يا قدونك لوضع أقل قدوميها قلها شعبك يكون نديسة يقدوميها أقل كسرة يكون نديسة ضمان xildhibaanada sharafta iyo ciziga badan ee halkan fadhiya howlwadeennada saraakiisha amniga saxaafadda qaybaha kale ee halkan nala wada jooga murashaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kulligayga saaxiibaday oo ayaguna goobta jooga khudbooyinkooda jeedinaya waxaan dhammaantiin idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaan kadib mudanayaal iyo marwooyin maanta waa maalin taariikhi ah xilliyadii Soomaalida soo marayay ee kala guurka ahaa xilli ka mid ah oo Soomaalidu ay dooranayso hoggaankii hoggaamin lahaa afarta sano ee soo socota xilli ay khudbooyinkiisa iyo aragtiyadiisa ay dhageysanayso way anigu magacayga waad garanaysaan cabdulqaadir sheekh cali sheekh ibraahim baa la yiraahdaa naynaas baqdaadi la yiraahdana waan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin inaan anigu maanta isku soo taago oon isku sharaxo xilka madaxweynenimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iguma aysan kalifin in aan doonayo kaliya magac ka hel ama nolol ka raadi waxa igu kalifay oo aan u soo raadiyay waa in aan dareemay in ay caynowday ama waajib igu noqotay inaan raadiyo xilkaas asaga wuxuu yiri nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu ninkii boqorka ahaa u yimid ijcalni ala khazaa'in al-ardi inni xafiidun caliim war iidii buu yiri maaliyadda nin aaminaan ahay aqoonna u leh waxa weeye maanta waxaa 32 sano baa dalku wali wuxuu baadigoobayaa hoggaankii hoggaamin lahaa hoggaanka hoggaaminaya dalkaani tilmaamo iyo sifooyin buu u baahan yahay madaxweyne in la doortaahi way sahlan tahay madaxweyne dal walbaahi wuu hoggaamin karaa laakiin Soomaaliya madaxweyne xukumo ma baahna Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaamiye haga maadaama uu sanahayn dal xasilan maadaama uu sanahayn dal faqri ka baxay maadaama uu sanahayn dal horumar higsanaya ee uu yahay dal dhiigu uu qulqulayo dib u dhac iyo faqri iyo dhibaato ay jirto waxaan dareemayaa hoggaanku afar sifo oo u baahan yahay afarta sifo inaan leeyahay wuxuu u baahan yahay khibrad waxaan u malaynayaa inta tartamaysa ninka ugu khibrad badan baan ahay 16 sano oo khibrad dawladnimo ah oo xariira oo qaybaha kala duwan si jaranjara ah laga soo bilaabo maamul xeer dejin 13 sano aan golaha baarlamaanka ku jiray xildhibaanadii igula jirayna ay garanayaan dowrkii iyo ruulkii aan ku lahaa ilaa xeeroosaadka baarlamaanka ay u bixiyeen baqdaadi borobart waxaan leeyahay khibrad fulineed oo ilaa 3 xukuumadood baan ka soo mid ahaa waxaan ka shaqeeyay oon khibrad ku yeeshay state house-kii ama madaxtooyadii qaranka intaasiba khibrad igu filan baan u leeyahay dawladnimada Soomaaliya khibrad iyo garasho igu filan baan u leeyahay dadka Soomaalida khibrad iyo garasho igu filan baan u leeyahay dalka Soomaaliya khibrad iyo garasho igu filan baan u leeyahay diinta maalinta aan dhaaranayo on leeyahay waxaan ku dhaaranayaa magac Ilaahay inaan xilkayga guto si daacad ah oo danta dalka iyo dadka iyo diintu ay ku jirto waxaan garanayaa waxaan u dhaartay waxa ay yihiin laakiin qof aan diintii garanayn danteeda kama shaqayn karo dadka qof aan garanayn dantooda kama shaqayn karo dalka qof aan garanayna dantiisa kama shaqayn karo walaalayaal waxaan isweydiiyay war hoggaanka maanta Soomaaliya u baahan tahay ma khabiir dhaqaalaha hoggaanka ay Soomaaliya u baahan tahay waa noociis ma mid maxaan ku raada arrimo bulshaa
hoggaanka Soomaaliya maanta u baahan tahay waa qof dareen amni leh xis amniye leh Soomaalidu waxay ku jirtaa diilin gaduudan waa dal amni ahaan aan u xasilnayn siyaasad ahaan aan u xasilnayn maxaa hortaagan amniga dalkan caqabada ugu weyn oo hortaagani waxa weeye waa argagixiso xambaarsan fikir xaq jira sidaas darteed waxay u baahan tahay qof dareen amni leh oo garanaya abaabulka iyo hogaaminta ciidanka iyo sida loo kacdoomiyo oo loo kiciyo oo looga horgeeyo cadawgooda oo dhisi kara waxa la yiraahdo al-aqiida al-askariya ciidanka aqiidadiisa yaani dareenka cidda uu la dirirayo cid awood u leh inay jihayso ciidanka si uu guto waajibaadkiisa qaran sidaas oo kale waxay u baahan tahay cidda lala dirirayo fikirkeeda cid garanaysa laba dagaal baanu maanta galaynaa dagaal waa mid military midna waa mid aragtiyeed dagaal fikriya waxaan ahay qof dareen amni leh oo dagaal military ahaan u abaabuli kara dalka waxay Soomaalidu tiraahdaa nin beelnow ah nin dhintay iyo nin dheer buu markhaati gashtaa waxaa ka mid ah baarlamaanka oo maanta hogaaminaya gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe 2010kii Makal Mukarrama dawladda Soomaaliya oo dhaafila oo amisom ay hor joogto ciidamadiina aad ay u kala daateen in badan oo kamidana xaq jirku uu naga tashkiilsaday markii aanu nimid ee ciidankii hubkiisii xabadtiisii dib noogu soo jeedsatay baan waxaan abaabulay dhalinyaro tiro badan oo fikir wanaagsan leh si tadawucana diyaar ugu ah inay la dagaalamaan xaq jirkaasi argixisadaas arinta ayada ahayd 500 oo ciidan ah ayaan gudoomiyaha maadaama xildhibaan ahaan u keenay dawladdu procedure-kii baa ku dheeraaday xabadii culayskiina waan u sii batay waxaan dhalinyaradii iyo rag culumaad aan ku qanciyay inay argixisada ayagu ay ku bilaabaan maadaama ay dad mutadawiciin ay yihiin waxay sababtay ilaa Makal Mukarrama xabadii hoosteeda ka bilaabatay wadada wadnaha markay tagtay dawladdu dareen heshay dadkii ayaga ahaana ay qaramaysay dibna ay hoggaan ugu samaysay rag dhaga badan ay ka mid ahaayeen walaalayaal maalintaas ilaa maanta waxaan u taagnaa in la helo ciidamo mukhlisiina oo daacada oo fikir wanaagsan xambaarsan oo argixisada la dirra taas ayada marka waxaan dareemayaa intaan hadda joogay oo systemkan aan ku dhex jiray maalintii 14 Oktoobar qaraxii u dhacay waxaan aad iyo aad baan uga danqado uga xanuunsaday aragti baan waxaan u soo bandhigay madaxweynaheena hadda jooga waxaan u sheegay dhalinyarada Soomaaliyeed inay xamaasadaysan tahay abaabul baan sameeyay xildhibaanadii maalintaasi dadka dawladda ka warqaba way garanayaan ciidankii 14 Oktoobar ee aniga oo aanan ahayn nin askariga ama mas'uuliyad amni haya ee xildhibaana si tadawucnimo aan sugu xilqaamay waxay noqdeen kuwa shanta buunda ee baabuurta waaweyn sidii 14 Oktoobar lagu qarxiyay laga soo gudbin jiray kuwa hor istaagan ilaa maanta ayay noqdeen xoreeyayna tan iyo markay inta la mid ah dareenkaas asaga ah marka oo amni baa igu jira dareenkaas amni marka wuxuu keeni karaa oo aan istareensiiyay inaan ahay qofka kaliya awoodda u leh inuu haraambay ku qaado oo uu abaabulo oo hiiro u noqdo bulshada Soomaaliyeed dhalinyaradooda si ay u gutaan waajibka amni ee qaranka ka saaran ayna uga xoreeyaan dalkooda argagixisada sidaas oo kale waxaan khibrad buuxdaan u leeyahay wiilka yarka ee Soomaaliga ee maskiinka ee hooyadii ay gablamayso ee miinada dhexda intii loogu soo xiro asaguna adduunna dhaafaya aakhirana naar tagaya dadka la joogana sajaranaya wiilkaas asaga ah ma waxa nala diriraya waa wiilka fikirka la xambaarsiiyay waxaan ahay khabiir aad iyo aad caalamiyan u yaqaana daraaseeya garanaya wax badanna ka qora fikirka argagixisada caalamiga iyo sida afkaarta loo daaweeyo takhasus baan ku leeyahay arintaas ayada waxaan dareemayaa marka baahida maanta Soomaaliya ay qabtaan ugu weyn inay tahay horta waa amni caqabadaha ugu horeeya ee amniga hortaaganna inuu yahay argagixisadaas ana maanta abaabuli karo sidii looga hortagi lahaa military ahaan iyo fikri ahaan waxa looga hortagi karaa iyo cidda ka hortagi kartaa waa culimada Soomaaliyeed maadaama dadka lagu shubay diin khaldan fikir khaldan laga been sheegay diintii qof aanan garanaynin diinta
ama takhasus aqoon aan u lahayn lama maxaan ku rajaalanji garayn karo ama kama hortagi karo fikirkaas xag jirka ah anigu waxaan ahay waad garanaysaan Soomaalidu afkaar kala duwan bay culimmadoodii qabtaa madaaris kala duwanna way yeelatay madaaristaas ayadaa qofkii isku keeni lahaa baan ahay saan uga horgeeyo halkan fikiro laynaya waad ogtihiin culimmada Soomaalidu nooc walba ay tahay hal qoriba ku soo jeeda hal mid baana dilaya hadday salafiye noqoto hadday suufiye noqoto dhammaan waad garanaysaan Sheekh Abdulqaadir Gacami baa lagu dhex dilay masaajid dhexdiisa Sheekh Dr. Ahmed baa lagu dilay Boosaaso Sheekh Bashiir Ahmed Salaad baa dhowr jarmiino loogu xiray waad garanaysaan Sheekh Dr. Abdinaasir baa ugu dambeeyay la dilay raggaasoo dhani waa indhihii fikirkii ama tayaarkii salafiga ahaa ee saxwada islaamiga dalkan indhaha u ahaa miyay nimankaasi u hambaynayaan waa may waad garanaysaan tayaarka suufiga ee dalka quburahoodii iyo maraakiskoodii iyo xarimahoodii waxa ay shabaab ka sameeyeen dadkaas ayaga ahi waxay u baahan yihiin maanta way wada bisil yihiin cid hal meel inta isku keento kalsoonidooda dhisi karta biriijna waa abuuri karta haddaan ayagaas ku guulaysanana inaan isku keenno oo hal dhinac u jeedinnana waxaan awoodi karnaa nin idilayaa nin igama darnee kuwa laynaya ee maqaasidii shariicada baabi'inaya inay isku dhinac ka noqdaan walaalayaal anigu maanta waxaan isleeyahay inaan ahay hogaamiyihii waqtigan loo baahnaa waxaan ahay dadka ugu da'yar dadka sharaxan baan ka mid ahay isla markaana qofka ugu khibradda badan baan ahay haddaan markaas ayadaa hoggaanka dalka ilaahay ugu guuleeyo oo aad go'aankeedii aad gaartaan waxaan rajaynayaa inaan isgoyskan 30 iyo dhowrka sano laga dhex bixi laayahay inaan ka saaro oo dalku u baxo bannaan u baxo oo wadadii weynay oo cagta u saaro maadaama caqabadaha ugu weyn kuwaas ayaga ay yihiin waxaan aan doonayaa in xildhibaanada sharafta badani ay hoggaanka dalka ay raadiyaan baadi baa nagu wada jirta waxaan idin leeyahay hoggaanka dalka yaan laga raadin 20% 60 ilaa maanta Soomaalida baarlamaankiina halkaan fadhiyahay 20% ka mid ah baa hoggaanka dalka soo haysay 80% kalena hoggaanka dalka ma aysan haynin kaannu waxaad u malaysaa inay tabaqad siyaasadeed ay jirto oo cadaalad siyaasadeed dalka aysan ka jirin waxaa abuurmay marka tabaqad siyaasadeed dadkii inay kala noqdaan second class citizen iyo first class citizen inay kala noqdaan in 80% laga raadiyo hoggaanka baa mathematic ahaan ama xisaab ahaan fudud intii laga raadin lahaa 20% laakiin anigu waxaan qabaa 100% ha laga raadiyo waxaad ogtihiin hoggaanadii dalkan soo maray waxay ku hoggaaminayeen ama ay ku halgamayeen magac Soomaalinimo qabiilku ma aysan hoggaaminayn 80% bay ka mid ahaayeen Sayyid Abdullah Hassan iyo Ahmed Guray iyo Sheekh Bashiir iyo maxaan ku raaddaa Sheekh Hassan Barsane iyo Sheekh Ibrahim Biimaal iyo raggii maxaan ku raaddaa ama isticmaar la halgamay ama ka hor sii halgamay dadkii fikriga ruwaadul fikri dalkan ahaa sida Sheekh Abdurrahmaan Zaylci Sheekh Ways al-Qadiri Sheekh Abdurrahmaan Suufi Sheekh Abubakar bin Xidaan iyo Sheekh Mawlana Abdurrahmaan iyo raggii aqoon-yahanada ahaa ama fikirka hoggaaminayna 80% ka ahaayeen 20 ilaa 60 hoggaanku ku koomay ma aysan ahayn waxaad garanaysaan saxwada islaamiga ay maanta jirta ayaguna sidaas oo kale inay ahaayeen waxaan maanta aan doonayaa in Soomaalidu ay hesho cadaalad siyaasadeed ay maxaan ku raada ay hesho kuraasta hoggaankana loo sinaado aniguna waxaan isleeyahay inaan ahay hoggaamiyihii maanta Soomaaliya badbaadin lahaa kana saari lahaa marxaladda ay marayso toobiyahana cagta u saari lahaa amnigooda iyo xasiloonidoodana ka shaqayn lahaa waxa iigu muhiimsan oo aan qabanayana waa arrintaas ayada oo ah horta amniga dalka inaan meel dhigo amni haddii la helo maxaa ku xigaya in axzaabi timaado doorasho qof iyo cod la helo xasilooni siyaasadeed ayadana ay timaado waxaan khibrad u leeyahay oo aan garanayaa muddo ka soo shaqeeyay shuruucda dalka in badanna aan dul fadhiyay oo aan maxaan ku raaddaa aan daraasaynay dastuurka si sahlan bay u sahlan tahay in dastuurka la dhammaystiro sidoo kale waxa xanuun iyo igu haya hameen iyo maalin duruufta dhaqaale ee aadka u foosha xun ee Soomaalida haysatay faqri waxaan xoogga saarayaa ayadoo aanan lahayn marxalad horumarineed buu dalku marayaa waayo horumarku waa darajada saddexaad ee dawladnimo waxa ugu horeeya amniga iyo xasiloonida siyaasadeed sidaas darteed waxaan laakiin loo baahan yahay dhiig joojin qoysas aad sabab u ah oo gacantooda dhulka taalo dhibaataysan baa jira
inta aan meesha joogo waxaan isku dayayaa qoysaska ugu saboolsan ee khadul faqriga ku jira ama dilinta faqiirnimo meesha ugu hooseysa ku jira ee habeen maalin xaafaduhu ay u qaaraamaan oo xanuunka badan ugu haya maadaama aan bulshada aad ugu dhex jiran ka warqabo inaan يعني 20,000 إلى 25,000 qoys xilkan hadduu alle ugu guuleeyo dhowrka sano aan joogo aan ka soo saaro si ay kor ugu soo kacdo nolosha dadka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa codkiina inaad siin doontaan dareenkeena aad ila wadaagi doontaan hoggaankan haybinaysan aan noqon doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh